gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed oo noqota milyaneer iyo mid ka mid ah haweenka Afrika ugu taajirsan. Aamina Mooge iyada oo 9 jir ah ayay bilowday ganacsiga, hadda oo ay 60 jir tahay intee ayay la egtahay hantideedu. Sheekadan ayaan ku eegi doonaa mashruuca malaayiinka dollar oo ay ka bilowday waddanka Uganda iyo taariikhda gabadhan Soomaaliyeed sida ay ku bilowday ganacsigeeda ilaa ay noqotay maalqabeen. haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir bogeenan Xuseen Xaaji Xasan muuqaalkana sii faafi. Aamina Mooge Xirsi waxa aan ka hadlaynaa gabadha ugu taajirsan gabdhaha Soomaaliyeed. sanadkii 1964 ayay ku dhalatay waddanka Kenya oo sidoo kalena ay ku barbaartay. waa dhal ganacsi marka laga hadlayo isirkeeda dhow. waxay ku dayan jirtay hooyadeed oo ahayd ganacsato caan ah oo bulshada laga dhex yaqaanay iyo adeerkeed oo sidoo kale ahaa ganacsade, taasi oo ku dhiirigelisay inay iyaduna gasho ganacsiga. sida ay sheegtay waxa ay waxbarashadeedu ku saleysneed ganacsiga ilaa ugu dambeyn ay noqotay xogayaha qasnada wasaaradda maaliyadda ee Kenya sanadkii 1980. iyada oo da'yar ayay ka bilowday ganacsiyada yaryar. marka laga hadlayo qaybtan iyo bilowgii ganacsigeeda, Aamina Mooge Xirsi waxa laga baran karaa in aysan ka cabsan waxa loo yaqaan business risks ama qataraha ganacsiga oo aad wajihi karto marka aad bilowdo ganacsi cusub. Aamina waxay sheegtay inay 9 jir ahayd markii ay bilowday ganacsiga, laakiin hadda oo ay 60 jir tahay waa mid ka mid ah dadka ugu hantida badan guud ahaan Afrika. waxay noqotay gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah oo noqota milyaneer. waxa lagu naanaysaa gabadhii bedeshay noloshii miyiga ee ka jirtay Kampala iyada horteed. hantida ay leedahay iyo ilaha dhaqaalaha ay ka samayso intaynu ka waramin waxaan xusi karnaa mashruuca weyn ee malaayiinka dollar oo ay ka hirgelinayso waddanka Uganda. halkan waa xaafadda Game Village ee degmada Amuru ee waqooyiga waddanka Uganda. waxa ka socda mashruuca ugu weyn ee warshadda sonkorta soo saarta oo ay ka shaqaynayaan wax ka badan 1500 oo shaqaale. Aamina Mooge Xirsi oo ah Soomaali milyaneer ama gabar Soomaaliyeed oo ah maalqabeen ayaa mas'uul ka ah warshadda sonkorta soo saarta ee laga furay gobolada waqooyi ee dalka Uganda. waa mid ka mid ah mashruucyadii ugu weynaa ee laga hirgeliyo bariga Afrika iyo waddankan saboolka ah ee Uganda. warshadda sonkorta ee lagu magacaabo Atiak waa mashruuc nooca loo yaqaan multimillionaire project oo ay hirgelinayso Aamina Xirsi, waxaana ku baxday lacag dhan ku dhawaad 10 milyan oo dollar. warshaddan waxay ku fadhidaa dhul ama bed la eg 10,000 oo kiiloomitir, waana in la eg isku darka 3 degmo oo gobolka Banaadir ka tirsan. waxa ayna shaqo bilowday sanadkii 2016. madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa isaga oo la socda diyaarad helicopter ah waxa uu kaga soo degay halkan si uu uga qayb galo xafladda furitaanka ee warshaddan oo ka shaqayn doonta soo saarista sonkorta. waxay noqotay shirkadda koowaad ee ugu weyn ee soo saarta sonkorta ee uu leeyahay qof shakhsi ah marka laga tago warshadda Kenyaaka oo ay maamusho dowladda Uganda. warshadda Atiak oo ay aas-aastay gabadhan Soomaaliyeed waxa ay soo saartaa maalin kasta 1600 oo tan oo u dhiganta 1,600,000 oo kun. isku darka guud ahaan waxa ay awood u leedahay sanadkiiba in ay soo saarto 66 milyan oo kiiloogaram oo sonkor ah. Aamina Xirsi milkiilaha warshadda sonkorta ee Atiak waxay warshadeedu tartan kula jirtaa shirkadaha soo saara sonkorta ee dunida, iyadoona kaalmaha hore kaga jirta qaaradda madow ee Afrika. waa maalqabeen haysata hanti gaaraysa malaayiin dollar. waxay mar noqotay mid ka mid ah gabdhaha ugu taajirsan Uganda, inkastoo hadda kaalinta hore ay kaga jirto haweeneydan oo lagu magacaabo Julian Adyeri. Aamina Mooge waxay muujisay kartida gabdhaha Soomaaliyeed, hal adeega iyo sida ay hoggaan ugu yihiin dhammaan hablaha dunida. marka la joogo Uganda waxay ka mid tahay tusaalaha ay ku daydaan gabdhaha reer Uganda ee soo koraya. Aamina Mooge waxay sidoo kale maamushaa dukaamada ugu waaweyn ee Kampala ku yaala ama waxa loo yaqaan shopping malls, Oasis Mall iyo Nakumatt Mall oo ka mid ah ganacsiyada ugu waaweyn, iyo Kingston Hardware oo ka shaqeysa qalabka dhismaha
ayaa ka mid ah hantida Aamina Mooge Xirsi. inkastoo ay tahay inan Soomaaliyeed, waxay hantideeda ku maalgelisay waddan shisheeye oo aan ahayn dalkii hooyo, taasi oo ah dhaliisha kaliya ee loo jeediyo marka laga hadlayo gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah oo milyaneer noqota. si kastaba, Aamina Mooge Xirsi waxay kor u qaaday magaca iyo sharafka Soomaaliyeed. bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee. haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir boggeenan Xuseen Xaaji Xasan. mahadsanid.